horta ani qabyaaladiista oo weyn ma u eka maalin hore anuu jasiirad dabaal u aaday badda anuu aaday cunugiriis walaa uu yaryaaya 15 16 meel jira ugu soo orda hab uu isii aad baan islaamaya saaxiibada meel kasta aad joogtaan halkan uu hadaleynta 17 saaxiibada ku soo dhawaada muuqaal kooban aynu ku eegi doono waa kuma wiilka daada yar ay habeen walba ay hablaha ku qarwaan sanadkee ayuu dunida ku soo biiray waa kuma qabiilka uu ka soo jeedo halkees ayuu ku dhashay wiilkan daada yar maxaa ka ogtahay ruuxa ay mar dhow mustaqbalka isla wadaagi doonaan aynu saaxiibada barnaamijkan ku eegi doonaa sidoo kale saaxiibada baraha bulshada waqtigiisa ayuu ku soo biiray waan idin soo gudbin doonaa saaxiibada ugu horeyntii waxaan idin ka codsanayaa in hadaleynta 17 page-ka follow inoo dhahdaan sidoo kale saaxiibada hadaleynta 17 YouTube-ka aynu ku leenahay subscribe inoo saartaan saaxiibada waxaad tihiin dad aad iyo aad u wanaagsan war horta ani qabyaaladiista oo weyn ma u eka maalin hore anuu jasiirad dabaal u aaday badda anuu aaday cunugiriis walaa uu yaryaaya 15 16 meel jira ugu soo orda hab uu isii waxaas dhaani cunugayarka meel uu ka arka walaa ma sha Allah ku farac kadib kulaha alikay he hooyaday sacad waa walaa abtigeed war ilaahay idinku dhaarshe ani qabyaaladiista baa idin la eka qabiilka walaa iskaaga ka kaftama marmari dhif xitaa ma badna xitaa yasir Allah warsano ku dhaamo walaa halo waya saaxiibada marka la soo dhawaada magaciisa waa Cali naanestiisana waxa la yiraahdaa Cali Kay oo baraha bulshada ayuu wiilkan cankay ahay 1999 ayuu dunida ku soo biiray magaalada caasimadda Muqdisho inuu ku dhashay daadiisa waa 22 sano jir weeyaan 99kii waxa ka soo wareegtay muddo 22 sano wuxuu ka soo jeedaa mid ka mid ah beelaha deegaanka gudaha maamulka Galmudug sidoo kale wiilkan la yiraahdo Cali waa mid aad iyo aad u dabeecad wanaagsan furfuran kaftan badan wuxuuna ka mid yahay dadka baraha bulshada gaar ahaan aaladda TikTok isticmaala laakiin ka mid ah dadka ugu fiican dhanka baraha bulshada gaar ahaan wiilasha hadii kaalinta koowaad uu yahayba ama kaalinta labaad haduu yahayba sidoo kale mar ayaa la weydiiyay Cali ma jeclaan lahayd gabar caanka baraha bulshada hadii noqon lahayd TikTok hadii noqon lahayd YouTube-ka oo ma jeclaan lahayd in nolosha la wadaagto wuxuu yiri maxaa diidayaa dadka inta badan waxay diidaan gabdhaha caanka laakiin aniga ahaanteedu ugu horeyntii waxaan aaminsanahay buu yiri calafka haduu kugu daro qofka markuu caan yahay waa inaad adigina ogolaataa laakiin hadii calafku uu ka diido runtii calafka ayaa markasto tilmaam wacan ku siinaya ayuu yiri oo dabcan uu kala jeedo in gabar caanka baraha bulshada mustaqbalka uu la wadaagi doono hadii ay isfahmaan weeyaan sidoo kale wiilkan dabcan baraha bulshada wuxuu ku soo biiray sanada markay yahay 2020ka bilowga ayuu ku soo biiray ilaa iminkan wuxuu ka mid yahay xidigaha ifinaya aaladda la yiraahdo TikTok waana mid ka mid ah midka ugu saameynta badan aaladda la yiraahdo TikTok Cali ayaan la yiraahdaa iminkan wuxuu ku nool yahay gudaha magaalada caasimadda Muqdisho waxaana markaasi Cali aan u rajaynaynaa noloshiisa inay noqoto mid aad iyo aad markaasi u fiicnaata saaxiibada ma doonayo muuqaalkan inaan ku sii fogaado waxaan idin ka codsanayaa in hadaleynta 17 Facebook page-ka weeyaan follow inoo dhahdaan sidoo kale hadaleynta 17na haddaba subscribe inoo saartaan saaxiibada waxaad tihiin dad aad iyo aad wanaagsan